waxaga xamse inta badan waxaad ka qayb qaadataa horumarka dhalinyarada iyo dhiirigelinta inta aynaan soo gelin xaruntaada iyo waxyaabaha ay qabato xarunta dhiirigelinta tababarada ee Tulaale oo mas'uul ka tahay isla markaasna asaasiga tahay iyo su'aalahaas inoo dambeyn doonaan adigu ahaan dhalinyarada Soomaaliland qaab noocyada dhiirigelinta uga qayb qaadataa anigu waxaan adeegsadaa saddex dariiqan adeegsadaa saddexda dariiqo waxaan waa dariiqada qoraalka iyo dariiqada yani hadalka inaan usoo qabto videos inaan soo gudbiyo dhalinyarada aan ku sheegayo waxyaalo badan in noloshooda ka horumarin karaan ka saddexaadna waxa weeyaan tababaro aan ku bixiyo isla macadkayga wata koobaad wixii ugu horeeyeen anuu ku kaca markii ugu horeysay waxay ahayd inaan qoraal sameeyo oo dhanka qoraalka u kaco dhankii qoraalka deetana waxaan ka doortay inaan sii noqdo qoraayadu way kala duwan yihiin mid siyaasadda ka hadlaa mid wuxuu ka hadlaa historyga waa taariikhda qaar kale waxaa la dhahaa human potential developers oo yani waxay ka hadlaan qaabka qofku noloshiisa u wanaagsan lahaa ha fikirka qaabkii loo horumarin lahaa loo wanaajin lahaa waayo ha fikirku waa waxa ugu weyn ee qofka bini'aadamkii uu haysto ha fikirkiisu oo dhan yani waxa uu saameynaya dhammaan noloshiisii kala dhan marka dariiqo waxa weyn waa dariiqo inaan social media oo kale aan ku soo qoro qoraallo yani faa'iido leh oo talooyina sidoo kale aan bixiyo cidii iga baahata talooyin ila soo xidhiidhay inaan talooyin siiyo ay ku wajahan dhibaatooyinkooda intii aqoonteedii oo awoodeydaba wad saddexaad inaan leeyahay barnaamij la yidhaha u heli naftaada oo video daawasha oo YouTube channel aan leeyahay aan ku soo baahiyay inta badan iyo social media channel u gaar ah sida kula socdaan waa channel u gaar ah marka dad badan baa ku xiran oo ila socda dariiqada kalena waxa weeyaan inaan tababar bixiyo isla macadka laftigiisa aan tababar toos ka bixiyo aan ku leeyahay waa xamsi hadana toos ugu soo galno su'aalahan ka weydiinayo xaruntaadan dhiirigelinta tababarada ee Tulaale goorma ay kugu dhalatay inaad xaruntan bilowdo waqtigii ugu horeysay ugu dhalatay waxay ahayd 2015 bilowgiisii waqtigaas oo ahayd inaan waqti aan mariyay iskuulada aan mariyay ka jeedinayay lectures motivation waxaan dugsiyada dalka weyn gaar ahaan Hargeysa qaar kamida dadana waxaan arkay dhalinyaradu baahida ay u qabto inay noloshooda horumariyaan sababtoo inta badan iskuulka iyo jaamacadaha laguma dhigo qaabka qofku isagu noloshiisa u horumarsan karo laakiin qofku waxa uu bartaa maad uu bartaa waxbuu bartaa shay laakiin isagu naftiisa ma barto marka waxaan ku fikiray inaan samayn karayo meel ay isugu yimaadaan dadku halkaas ay ka qaadan karaan tababar yar oo waqti badan ka cunayn ay kana helayaan aqoon badan taasoo ay yani ku baraarugayaan deegaanka ku hareeraysan fursadaha badan ee ka jira sidoo kalena ay awaanayaan ay awood yeelan karayaan inay naftooda noloshooda ay horumar gaarsiin karayaan waqtigan ay ku dhalatay waxay ahayd waqti aan mariyay iskuulaadka aan ku sheegayo dadana ardayda kamid ah wuxuu yimid markii aan lecture ka dhameeyay dadna wuxuu yiri waxaad ka sheekeynaysaa horumarka iyo qaabka qofka noloshiisa u horumarin lahaa waxaan fahmi waayay buu yiri يعني horumarkan uu qofku sameeyo miyana kaliya taadaan wax dhigtoon gurigeyga ka soo kacon soo toosan lacag yarna iska helamaanay horumar ahayn kulita waxaan dareemay inay jira yani khalad fahan yani noloshii laftigeedii qayb kamida la yar khalad fahmay way qofku wuxuu leeyahay deegaanka ku nool yahay caqalada badan oo isagu isku sameeyay iyo qaar deegaanka kaga imanaya taasoo in badan oo dadka kamida ku sababtay in nolosha iyagu laftigoodu ay ka dhacaan ay khadka ka baxaan marka waxaan ku fikiray bal inaan sameyn karayo meel yani macad soo saari karta dad ogaalkooda uu soo jeedo dad yani noloshooda iyagu horumarin kara dadka kalena caawin karaya waxyaalaha kale ee igu sii khasbay waxa ahaa markii ugu horeysay buugigii ugu horeeyay qoray waxaan dareemay Soomaalida inaanay wax badan akhriyin amba ay ka wahsanaanba inay wax akhriyaan taasi markaa waxay yareynaysaa awoodda uu fikirkii ku gaari karayo dad badan marka waxaan ku fikiray in yani aan soo saaro dad anigoo waxna qoraya macadkiina dad ka soo baxaan dadkaas iyaguna anfici karaya dad yoogii kale iyaga laftooda ku hareeraysan waxa xamsi xaruntaadan Tulaale dhalinyaro intee leeg baa kugu xiran dhalinyaro intee leeg baad ka qayb qaadataa horumarkooda u soo jeedisa sida iyagu nafta iyo noloshooda ay horumar gaarsiin lahaayeen dhalinyarta in kugu xiran waa leentay waqtigii ugu horeysay bilaabay waxa ahaa 2015 September 3 waqtigaas kulli dhalinyaro badan iimayman ilaa 24 dhalinyaro noo yimid oo macadka yani ka soo qayb qaatay tababarka waxaanay ku guuleysteen 24 inay ka qalin jabiyaan courseska aanu siinay dhalinyarada ilaa imika macadka ku xidhan aad bay u badan yihiin qaar badan oo ka qalin jabiyay qaar rajaynaya iyaguna inay ku soo biiraan dhalinyarada imika aan oran karo way ka qalin jabiyeen guud ahaan tababarada macadku bixiye kala duwan waxa ku dhawaan ilaa 500 arday waqtigan xaadirka inta ka baxday oo waxa jira tababaraan ku soo qabanay gobolka Togdheer aan ku soo qabanay magaalada madaxdiisa Burco
waxaanu kusoo tababarnay arday ku dhow ilaa 300 oo arday oonu soo siinay dhowr koorasoo kala duwan marka waxaan oran karaa yani Hargeysa iyo Burco waxay nasiib u heleen inuu macadku uu gaadho tababar ka gaarsiiyo waana rajaynaynaa in badan inaanu gaadhno dhammaan gobolada kale oo dhan waanu siino tababaradan aan fursad u siino laakiin waxa kaliya naxariyaa inaanay anaga hay'adna caawin aanay dawladna caawin anagu laakiin iskay aan isku dayno inaanu u horumarino ama aanu u wadno isla macadkan doonayno inaanu dadka fikirkooda ama fikirkooda ku horumarino kuna wanaajino وهاج حمزة مركي dhalinyarada si ay ka soo baxaan xarunta Tulaale maxaflad wada qabataa qaab noocyada dhalinyarada u dhiirigelisa mashaahadooyin balsiya abaalmarin noocyada dhalinyarada ka qayb qaata dhalinyaradina waxay qaataan tababar muddo 3 bilooda tababarkaas oo ah courses kala duwan ama courses kala duwan ay ku qaataan courseska waxa kamid ah course la yiraahdo personal skills oo ah qofku sidii uu yani naftiisa u horumarin lahaa waa xirfadihii shakhsiga ahaa isagu qofkii uu werweraya waa inuu heli karaa hab werwerkiisa oo kula tacaali karayo qofkii qorshe u baahan yahay inuu heli karaa qaab qorshiisa oo ka aadsan karo qofku wuxuu doonaya inuu waqtigiisa maareysto inuu heli karaa qaab aan bahanaan oo waqtigiisa ku maareysan karo waxyaalahaas oo dhan marka waxay ka caawinayaan qofkii shakhsiyan inuu dhismo kala bad waxa weeyaan public speaking kala dhaaf fagaara ka hadalka inuu qofku awood u leeyahay inuu fagaara ka hadli karayo oo yani cid la hadli karayo isagoo qancinaya una hadlaya si kalsooni leh fagaara ka hadalkaas laba faa'iido leeyahay inuu qofka kalsoonidiisa dhisayo inuu qofka dhisayo inuu qofku noqdo qof aftahana oo cid wax ka dhaadhicin karaya fikirkiisana meel marsan karaya kastaxad wuxuu yahay interpersonal skills waxa la yiraahdo oo ah qofku yani horumar buu doonaya horumarka uu doonaya dad ku dhexnooliyay dadka mashaakil baa kaga imanaya marka waa inuu dadkii la qabsan karaya waa inuu dad la dhaqan wanaagsan leeyahay kaasina marka wuxuu ka caawinayaa dad la dhaqanimada maadaama naftigu horumarinayo shakhsiyadiisa gaarka ahna waa inuu awood u yeelan karaa inuu dadkii si fiican ula dhaqmi karayo ka faranda waxa weeyaan waxaan la dhahaa leadership ama hogaaminta ay isaguna ku bartaa iminkana waxaan soo kordhinay course la dhahaa fundamental psychology oo yani cilmi nafsiga asaasiyaadkiisa ama basicskiisa oo qofkii ku baranaya fundamentalka qababka uu baranaya waxa weeyaan cashar ahaan baan ku siinaa tusaalahaan kale public speaking oo kale 90% wuxuu ku qaataa practical ay u dhamaystiran yihiin microphone-ka uu ku hadlayo qalabkii kamarada ay jirto qofkii laga duubo ardaydii la hadlayo kaasoo kale waan sameynaa kuwan kalena waxaan sameynaa inaan waaqac ku saleyno dhammaan waxaan dhigayno oo dhan inaan ku saleyno deegaankii problemska ka jiray isla deegaankan aynu ku noolahay oo ah Somaliland aynu isku dayna marka qofku waxa ka caawinaysa inuu ogaalkiisi aad u kaco sidoo kale wax badan ogaado si ballaaran oo fikir maskaxiyan wax badan oo ogaado ka qarsoona markii hore ka sax xamsi aad u maasan tahay daawadeen wali waxaan si toos ah ugu guda jirnaa barnaamijkii dhalinyarada telefishin qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxaana toddobaadkan si toos ah martinagu ah isla markaasina aan ku soo casuunay barnaamijka Xamse Saciid Maxamed Xamse Tulaale oo ah maamulaha ama managerka guud ee xarunta dhiirigelinta tababarka ee Tulaale